run ahaantii dilaagan aragtida koowaad wejigiisa cabsi ayaa kaa gelaysa qof kastoo arkana waa uu ka baqanayaa dhacdadan waxaa si talantaali ah idinkugu soo tabinaya anigoo ah Nadara Saciid iyo anigoo ah Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho waxa uu ka mid yahay amase uu ku jiraa ninkani dadka geystay dilalka adduunka ugu khatarsan sida oo kalena wajigooda laga cabsanayo marka ugu horeysa la arko ninkan ayaa qofka arka wajigiisa waa uu ka cabsadaa amase waa uu ka baqaa sida darteedna waxa uu caan ku noqdayba taatuuga wajigiisa ugu yaala ee cabsida leh labadiisa indhood mid kamida ayaa sida oo kalena waxa uu ku buufiyay taatuug madow amase black ah sida darteed ayaa ninkan waxa loo bixiyay magac ah ninkii isha madooba dilaagan daadiisu waa 39 jir waxa uu ahaa faqiir aan guri lahayn wuxuu ku noolaan jiray dariiqyada isagoo nolosha ka dhacay markasta waxa uu isku dayay jiray inuu shaqo raadsado laakiin waa la diidi jiray meel kasta uu tagana waa laga soo eri jiray sabab la xiriirta taatuuga wajigiisa ku yaala oo ay dadku ku naceen oo waxay oran jireen qof lagu kalsoonaan karo wajigiisa uma eka taasna waxa ay sababtay inuu noqdo faqiir dariiqyada seexda oo aan wax shaqo iyo lacag toona haysan dilaagan noloshu waxa ay ku noqotay mid cidhiidhi ah wuxuu bilaabay in uu noqdo tuug waxa uu ku kici jiray amase uu sameyn jiray wax kasta oo mamnuuc ah si uu helo nolol maalmeedkiisa wuxuu sidaa ku wada noloshiisa maalin isagoo hawshiisii tuugnimo ku jira ayaa waxa uu jabsaday baabuuro fara badan waxa uu u dhacay guryo fara badan isagoo alaabo badan naxaday ugu dambeyn waxa uu soo galay hotel isagoo raba in uu dhac badan ka geysto hotelkaas waxa ka dhacay qalalaase aad u fara badan markii dambena waxa soo gaaray goobtaas askartii dilaagan waxa uu bilaabay inuu isdifaaco si aan loo qaban rasaas ayuuna ku riday booliskii sarkaal ayuu bartaasi ku dilay halka mid kalena uu dhaawac culus gaarsiiyay laakiin nasiib darro isagana hotelkii ayaa lagu dhex qabtay laguna xiray waa dambiile galay fal dambiye dil ah waxa uu ka mid yahay dadka ugu caansan social media ee galay dambiyada dilka ah dhacdadani waxa ay dhacday 2012 intaasi looguma ekeenin ee xukunka ayaa lagu sii adkeeyay taasi oo ay sabab u tahay taatuuga wajigiisa uu marsaday kana tarjumaya shakhsiyadda uu yahay daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalkan sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa inaadan hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan una share garay asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho bushaaro fursad shaqo oo qaali ah fursad dahabi ah oo aad ku samayn kartid malaayiin lacaga ma rabtaa inaad noqotid guulayste nolosha heer ka gaadhay sameeyeyna lacag badan adigoo gurigaaga jooga haddaba rumee rajadaada oo ka mid noqo xubin ka tirsan shirkadda weyn ee caalamiga ah Alpha Group Company ku soo biir adigoo ka mid noqonaya iibsanayana alaabta ay soo saarto AG Nutrition haddii aad tahay qof danaynaya fursadan qaaliga ah wixii faahfaahin intaas dheeraada nagala soo xidhiidh WhatsApp numberka shaashada ka muuqda waa anigoo ah Nadara Saciid daawade haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay Welcome to AG Nutrition, best company trust of people. No matter how you are welcome. Welcome to AG Nutrition, best company trust of people. No matter how you are welcome. Are you looking for an opportunity? Do you wanna be your own boss? Welcome to AG Nutrition, best company transform people. Don't sit and wait for a job, just come close, get in the form. Let me tell you brothers and sisters, this not a joke but reality. If you have a dream, you wanna achieve it. Welcome to AG Nutrition, best company transform people.